السلام عليكم كلنتي وعنا wanaagsan dhamaan baa saxaabta hawada naga daawanaysa halkan waa channelka Dulmidi Tube dawdeel ku soo dhawaada barnaamij gaar ah aynu ku eegi doono dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhaca Soomaaliya sanadkan si dhamaanaya ee 2019 waxa soo saaray isku soo dubriday isla markaana idin soo jeedin doona anigoo ah Farxaan Maxamed Cali Farxaan Fantastiga kuna soo dhawaada daawadayal 2 January 2019 dawladda Soomaaliya ayaa ku amartay wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom in uu si degdeg ah wadanka ugu baxo kadib markuu faragelin ku sameeyay rabshadihii ka dhacay Baydhabo 8 January 2019 baarlamaanka dawlad goboleedka Puntland ayaa madaxweyne u doortay Siciid Cabdilaahi Deni waana doorasho 5 sanaba marka qabsoonta Puntland laguna doorto hogaanka sare ee maamulkaas 15 January 2019 waxaa dalka Canada ku geeriyootay fanaanadii caanka ahayd ee Khadiija Cabdilaahi Dalays oo kamid ahayd fanaaniintii hobolada qaranka Soomaaliyeed ee Waaberi 26 January 2019 madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxda dawlad goboleedyada iyo asxaabta mucaaradka ayaa ka qayb galay caleemasaarkii loo sameeyay madaxweynaha Puntland 15 January 2019 xarakada Al-Shabaab ayaa weerar culus ku qaaday Hotel Dusit 2 oo ku yaala magaalada Nairobi ee dalka Kenya halkaas oo ay sheegeen in ay ku dileen 47 qof walow dawladda Kenya ay sheegtay in lagu dilay 21 qof weerarkaas dadka ku dhintay waxa ku jiray laba wiil oo walaalo ah oo lagu kala magacaabi jiray Faisal Daahir iyo Abdilaahi Daahir 4 February 2019 xarakada Al-Shabaab ayaa magaalada Boosaaso ku dilay madaxii shirkadda DB World ee dekedda Boosaaso saacado kadibna waxaa isbitaalka ku geeriyooday ninkii toogtay oo ku dhaawacmay rasaas ciidamadu ay ku fureen 23 February 2019 dabley ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa magaalada Muqdisho ku dilay xildhibaan Cusmaan Cilmi Boqorre xilli uu ku sugnaa degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir xildhibaan Boqorre ayaa muddo dheer ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya wuxuuna mar soo noqday gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka 15 May 2019 waxaa Garoobi ka dhacay shirkii madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya shirkaas oo ku soo dhamaaday is-afgaran waa maalmo kadibna lagu kala dareeray 30 May 2019 qaramada midoobay ayaa James Iswan oo ah diblomaasi u dhashay dalka Mareykanka waxay u magacowday safiirkeeda cusub ee Soomaaliya kadib cayrintii Nicholas Haysom 28 May 2019 maamul goboleedka Puntland ayaa joojisay wada shaqayntii kala dhaxeeyay dawladda federaalka Soomaaliya kadib markii lagu heshiin waayay shirkii Garoobe ay iskugu yimaadeen madaxda dawladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada 24 June 2019 madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa aqbalay in doorasho laga qabto Galmudug isagoo dhinaca kalena gaashaanka u daruuray heshiiskii Galmudug iyo ahlu sunna ay ku midoobeen ee ka dhacay dalka Djibouti 12 July 2019 xarakada Al-Shabaab ayaa weerar culus ku qaaday Hotel Madiina ee magaalada Kismaayo halkaas oo ay ku dileen 26 oo u badnaa dad shacab ah dadkii weerarkaas lagu dilay waxa kamid ahayd Allah u naxariiste saxafiyadii caanka ahayd Hodan Naaleeye iyo saygeeda Fariid Jaamac sidoo kale waxa kamid ahaa murashax madaxweyne Jubbaland iyo mas'uuliyiin kale oo badan 18 July 2019 Allah u naxariiste waxa isbitaal ku yaala magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ku geeriyooday abwaankii weynaa ee Maxamuud Cabdilaahi Ciise oo ku magac dheeraa Abwaan Sangub 24 July 2019 qarax ismiidaamin ah ayaa ka dhacay xarunta dawladda hoose ee Muqdisho gaar ahaan goob ay ku shirayeen duqii hore ee Muqdisho iyo mas'uuliyiinta degmooyinka Banaadir 21 August 2019 Allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow ayaa u geeriyooday dhaawacii ka soo gaaray qaraxii ka dhacay xarunta dawladda hoose ee Muqdisho 24 July injineer Yariisow ayaa lagu daweynayay isbitaal ku yaala magaalada Dooxa ee dalka Qatar oo loo qaaday maalin kadib qaraxa 22 August 2019 baarlamaanka Jubbaland ayaa markii saddexaad madaxweyne u doortay Axmed Madoobe inkastoo doorashadiisu ay muran badan dhalisay 22 August 2019 dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in aysan aqoonsaneen doorashooyinkii ka dhacay maamul goboleedka Jubbaland waxay ku tilmaamtay doorashadaas iscaleemasaar baalmarsan habraaca doorashooyinka dastuurka iyo shuruucda Soomaaliya 22 August 2019 golaha wasiirada Soomaaliya ayaa magacaabay 4 taliye oo kala ah taliyaha ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka Fahad Yaasiin taliyaha ciidanka booliska Cabdi Xasan Xijaar taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odawa iyo taliyaha ciidanka asluubta General Mahad Abdiraxmaan Aadan 23 September 2019 dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa xayiraad ku soo rogtay tigitaanka magaalada Kismaayo ee maamul goboleedka Jubbaland 3 September 2019 xarakada Al-Shabaab ayaa weerar loo adeegsaday qaraxyo ismiidaamin ah iyo weerar toos ah ku qaaday saldhigga ciidanka Mareykanka ee Belidogle taliska ciidanka Danab ayaa sheegay weerarkaas in
ay 10 daqiiqo gudaheed ku soo afjareen ayna dileen dhammaan raggii wararkaas ku soo qaaday xerada. 10kii Oktoobar 2019 dowladda Soomaaliya ayaa u diiday inay magaalada Kismaayo u safraan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Talaabadaasi xayiraada ah waxay cadho badan ku abuurtay xisbiyada mucaaradka. 17kii Oktoobar 2019 maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ayaa mar labaad dib u dhigtay dhageysiga dacwadda la xiriirta muranka badda ee u dhaxeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. Warbixin qoraal ah oo ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in labada dhinac loo garnaqi doono 8 ilaa 12 bisha Juun ee sanadka dambe ee 2020. 26kii Oktoobar 2019 webiga Shabeelle ayaa fatahaad baaxad weyn ka geystay gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne taasoo sababtay in kumanaan qoys ay guryahooda ka barakacaan. 28kii Oktoobar 2019 doon ay la socdeen duqa magaalada Beledweyne iyo mas'uuliyiin kale oo ku howlanaa gurmadka fatahaadaha ayaa ku qalimatay biyaha webiga waxaana halkaas ku geeriyootay Dahaba Axmed Xasan oo ahayd la taliyaha arrimaha haweenka madaxweynaha Hirshabeelle iyo dad kale oo doonta la socday. 7 November 2019 baarlamaanka Puntland ayaa xilkii ka tuuray gudoomiyahoodii Cabdixakiin Dhoobo Daareed saacado kadib markii dagaal dhiig ku daatay uu ka dhacay xarunta baarlamaanka. 14 November 2019 baarlamaanka maamul goboleedka Puntland ayaa gudoomiye cusub u doortay Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil. 20 November 2019 Almas Elman oo ahayd diblomaasiyad Soomaaliyeed iyo xoghayihii koowaad ee safaaradda Soomaaliya ee Kenya ayaa lagu dilay iridda hore ee xerada Xalane ee Muqdisho. Ilaa hadda lama oga sababta loo dilay inkastoo taliska AMISOM uu sheegay in xabad wiifta ah ay ku dhacday kadibna ay u dhimatay. 7 December 2019 duufaano xoog ah iyo roobab iswadata ayaa ku dhuftay qaar ka mid ah deegaanada maamul goboleedka Puntland iyadoo u geysatay khasaaro naf iyo maalba leh waxayna go'doomisay deegaano ku yaala xeebaha. 11 December 2019 dowladda federaalka Soomaaliya iyo ahlu sunna ayaa ku heshiiyey in ay ahlu sunna hesho 20 kursi oo ka mid ah 89 kursi uu ka kooban yahay baarlamaanka maamul goboleedka Galmudug. 18 December 2019 aqalka Koongareeska ee dalka Mareykanka ayaa isku raacay in ay Soomaaliya laga cafiyo lacagihii deymaha ee uu ku lahaa dalka Mareykanka. 22 December 2019 7 qof oo isugu jiray ciidan iyo shacab ayaa ku dhintay gaari ismiidaamin ah oo lagu weeraray hotel ku yaala koonfurta Kaalkacyo oo ay ku sugnaayeen taliyaha ciidanka dhulka Generaal Cabdixamiid Maxamed Dirir iyo Generaal Cabdicasiis Cabdilaahi Qooje. Taliyaha ciidanka xoogga dalka qaybta 12aad 18 December 2019 ku dhawaad 100 qof ayaa ku dhintay weerar ismiidaamin ah oo gilgilay bar control oo ay ciidamada ku lahaayeen isgoyska Ex Control ee Afgooye. wuxuu ahaa weerarkii labaad ee ugu dhimashada badnaa oo ka dhaca magaalada Muqdisho. 28 December 2019 baarlamaanka Soomaaliya ayaa meel mariyay sharciga cusub ee doorashooyinka Soomaaliya. sharcigaas oo wax weyn ka bedeli doona habkii ay u dhici jireen doorashooyinkii hore. 29 December 2019 dowladda Turkiga ayaa 2 diyaaradood oo siday dhaqaatiir iyo dawooyin u soo dirtay magaalada Muqdisho iyagoo halkaas ka qaaday 16 qof oo ahaa dhaawacyo culus. 3 December 2019 dowladda Qatar ayaa diyaarad u soo dirtay magaalada Muqdisho waxayna halkaas ka qaaday 22 dhaawac. 3 December 2019 hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ee NISA ayaa shaacisay in qaraxii ka dhacay Ex Control Afgooye ay qorshihiisa lahayd dowlad shisheeye walow dowladdaas aynan magacaabin. 3 December 2019 goor ay habeen ahayd Al-Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda qaraxii lagu hoobtay ee Ex Control Afgooye waxayna markii ugu horeysay ay tacsi u direen shacabkii khasaaraha ka soo gaaray qaraxaasi. Waxaag daawadeen intaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijkii gaarka ah aan ku eegayay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee Soomaaliya ka dhaca sanadkan sii dhamaanaya. halka adiga daawanaysanna waa channelka Dulmiti Tube. intaan barnaamij xiga aan dib hawada u kulmi doono hadduu Allah awood u ogolaado waxaan idinkaga tegayaa sanad waliba hoodiyo wuxuu hadii maleeyahay yacni sanad wanaagsan. ilaahay sanadkan sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo hayna u gaarsiiyo.